ciyaartoy Ciro oo sita nambarka 2025 khubaradii waxay u soo dusiyeen sirtan aan idin sheegi doono. Asalaamu calaykum, waa qaybteeni labaad barnaamijkan u bixinay Ciro iyo ictiraafka Somaliland. qaybtani waxay leedahay sidan soo socota. Go'aanka dowladaha casriga ah waxaa gundhig iyo sal u ah maslaxadaha shucuubtooda oo keliya. diin iyo walaalnimo kama mid aha waxyaabaha go'aanka ka gaadha xidhiidhada iyo go'aamada ay gaadhayaan dowladaha waaweyn oo ay ka mid yihiin dowladaha Islaamka. Dal Hebel si uu u noolaado waa in dal Hebel kale dadkiisu u dhintaan, loo go'doomiyo, amaba ay u noqdaan dad lugaha hoostooda ku jira. Waa siyaasadda caalamku uu ku dhaqmayay wixii ka dambeeyay 2000. Madaxweynaha dalkan curdinka ah ee aan caalamka aqoonsiga ka haysan, dadkiisuna ku sii dhowaanayaan 60 milyan, boqolkiiba 80 ay bilaa camalka yihiin, ku nool mandaqad gubanaysa oo maalinba maalinta ka dambaysa sii hoobanaysa, kuna dhow saacad kasta mid qarxi karta. Waxaa madaxweynaha u muuqday inuu gaadho laba go'aan midkood: inuu ku daawado ha isla dunto oo gebiga marba garba ha sii dunto sidii garbooyin horeba ay u dumeen dhowaanahan aan fogeyn, iyo inuu hal mar xidigaha ku shareero si loo gaari waayo loona fanan kari waayo. Ugu dambeyn go'aankii wuu qaatay. Wuxuu go'aamiyey inay dhammaatay waqtigii calacalka, baryada. Waxaa la joogaa waqti farta la isugu yeedhayo. Shaadhkaaga haddii lagugu qabsado waa inaad u bixisaa, ama waa inaad inta kuu soo hadhay ka tolataa in ku leeg. Wuxuu eegay waaqica dowladaha Islaamka. Kuma jirto dowlad Islaam ah oo maanta u kala xaq soorta dowladaha Islaamka. Sidoo kale kuma jirto dowlad xataa awood u leh inay kala qabato haddii ay jiraan laba dad oo muslimiin ah oo isku maranaya. Taa iska daaye, waxaa jira dowladaha ugu awoodda badan dowladaha Islaamku inay yihiin kuwa xulufada la ah dowladaha siyaasadda maanta adduunka hogaamiya. Wuxuu go'aansaday inuu la hadlo caalamka hal weedh oo keliya kula wada hadlo. Wuxuu yidhi dhankooda ha ka timaado diidmadu, laakiinse si isku mid ayaan ula wada hadlayaa gaal iyo islaamba. Waxaa dhici karta in maalin maalmaha ka mid ah ama saacad saacadaha ka mid ah uu caqliga ku soo dego dowladaha aan walaalaha nahay, diintuna naga dhexayso. Dhinaca kale wuxuu eegay caalamka siyaasadda ka taagan cidda jaanguysa. Waxaa jira maxkamad loo yaqaano maxkamadda cadaaladda. Waxba kama aha dowladaha muslimiintu. Qaadhaanka iyo fanka lagu maamulana waxaa bixiya saan cadaale. Wuxuu eegay dhinaca kale waxa loo yaqaano golaha ammaanka ama qaramada midoobay. Ayana door kuma laha dowladaha Islaamku. Waxaa jira midowga loo yaqaano midowga Yurub, isagana warkiisa badaa. Yurub waa naadir reer galbeed ah oo 50 sannadood dowladda aynu walaalaha nahay ee Turkigu albaabada garaacaysay, laakiinse nasiib darro ilaa iyo maanta looma jawaabin. Wuxuu eegay dhanka kale iyo galbeedka fog ee caalamka. Waxaa soo baxay carriga Maraykanka nin ka shaqaynaya danta shacabkiisa, u heelan doonitaanka ummaddiisa. Alla ilaahe ninkaasi inuu noqon karo qofka dilaal ka noqon kara doonista ummadda Somaliland, suuqna geyn kara khayraadka dalkeeda. Waxaa lagu fasaxay oo la kala diray dhammaan khubaradii siyaasadaha caalamka daraasayn jiray. Waxaa la kala diray rugcadaagii bari iyo galbeed adduunka soo maray. Ugu dambeyn
kelmaddii Somalilan waxay gaadhay dhagaha iyo indhaha mulkiilaha guriga cad maanta ka taliya. Laakiin khubaradii waxay u soo dusiyeen sirtan aan idin sheegi doono. waxaa la yidhi waddada aad soo qaadeen way saxan tahay, laakiinse waxa idinka horreeya gebi oo waxay ka xidhan tahay afka ugu dambeeya. derbi adag ayaa waajihi doontaan idinka oo daalay. waxaa loo dusiyey dariiqa toobiya ah. isagoo aan iska lumin waqti, wuxuu toos u abbaaray sirtii loo qishay. muddo yar gudaheed, caalamkii oo dhan Somalilan, ardu Soomaal, Jamhuuriyadda Somalilan ayuu ku dhawaaqay. waxaa loo kala qaybsamay 2 kooxood. kuwo waagii baa ku baryey oo biriijka ayay ka dhaceen sidii bahalkii barqinka kacay. kuwana way dabaaldegeen sidii Hargeysaba looga dabaaldegay. taleefankii qasriga madaxtooyadu wuxuu noqday mid mashquul ah. hadda waa taleefankii muddo yar ka hor aan la qaban jirin, iska daayay aan la jileeci jirin. laakiinse jawaabtu waxay noqotay, annagu waxaanu nahay ummad idinka duwan. waanu qabanaynaa taleefan kasta oo na soo waca ama dawan kasta oo ka yeedha qasriga madaxtooyada, xataa haddii uu yahay taleefanka soo dhacaya midka xasan yaraha jooga xamar. laakiinse taleefan oo dhan, shardiga koowaad waa inuu yahay mid danaha shacabka Somalilan oo keliyata ka turjumaya. wuu dhammaaday wakhtigii calaacalku, wuu dhammaaday wakhtigii baryadu. guniga gunaanadkii shaxda ciro ee ictiraafka Somalilan sidan ayay u dhignayd. haddaanad lahayn quwad aad ku jiidho difaacyada hareeraha kaa taagan, waa inaad yeelataa xarfad iyo gas aad ku dhaafi karto difaacyada tobanaanka ah ee istaba yaalla si aad u dhaliso hadafkaaga, ugu dambaynna goolka aad ugu dabaaldegto. hadda ka hor Somalilan waxay ahayd hilib bannaan yaalla, haddase waa buuri ka dambayso. weli xarfaddii way socotaa oo may dhammaan. kuwo badan oo aan inaga dheerayn lafdhabarta ayay ka jabeen gastii gaadhay awgeed. sababtoo ah waxay ahayd inay ciyaaraha ka fadhiistaan 2005 ugu dambayntii. hase ahaatee waxaa lagu yidhi ilaa intay carruurtu ka naaxayaan waa inaad orodaa. kuwo kalena waxay ismoodeen xarfaan oo waxaa gaadhay dhaawac xun kadib markii gastii gaadhay ay gidaar ka soo go'een. dhaawacaa soo gaadhay ma hayso cid dhaawici soo dhayda. dhakhaatiirtii oo dhanba bilaa mushaahar bay uga dareereen. waxaa soo hadhay hal dhakhtar, kaasina hareeraha u eegayaa oo wuxuu isleeyahay armaad iska dhigtaa intaanay kugu magac yeelanin. ciyaartoy ciro oo sita nambarka 2025 oo aan caalamka hore loo xidhan geeska Afrika daaye. waxaa daawanaya junior xoog leh oo taarabuunka soo fadhiya. gastiisa iyo xarfadiisa way la dhacsan yihiin, laakiin sacabka ma tumayaan. hase ahaatee guryahooda waa laga tumaa, kamana xumaadaan. juniorkaasi rajo wanaagsan bay leeyihiin, laakiin ha daawadaan janalka saxda ah, yay daawanin janalka qashiinka ciyaar xumaa ah. wassalaamu calaykum.